الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، inagama qarsoona qofka bani aadamkaahi intuu adduunyada joogo inuu la kulmo dhibaatooyin iyo xaalado adag iyo arrimo fara badan oo qalbigiisa culaysiya kurbana sabab ugu noqda. ilaahay baa subxaanahu wa tacaala arrinka noocaasiya qadaray oo xukumay. rabbina subxaanahu wa tacaala wuxuu sidaa u yeelay imtixaan uu imtixaamaya addoomihiisa. marka xaaladdu ku adkaato ma xagga ilaahay bay u cararayaan, oo xidhiidhka ilaahay ay la leeyihiin bay xoojinayaan, oo way sabrayaan, oo ilaahay bay subxaanahu wa tacaala faraj ka sugayaan ay ka rajaynayaan, mise ilaahay bay subxaanahu wa tacaala ka fogaanayaan xaaladaha adag marka ay la kulmaan. waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala xukunkiisa ka mid a addoomuhu amarkiisa markay caasiyaan inuu ku ciqaabo xaalado adag oo warwar iyo culays fara badan qulubtooda ku haya. arrinta noocaasi oo ujeeddada rabbi uu ka leeyahay ay tahay inay isgartaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ay u toobad keenaan, khaladka iyo gafka iyo dembigana ay ka soo noqdaan. shaki kuma jiro xaalad kastoo adag faraj ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ka dambeeyo. ilaahay baa yihi inna maca alcusri yusra, aday kaste fudayd baa la socda. sayajcalu allahu bacda cusrin yusra, adayg iyo xaalad kastoo adag fudayd iyo faraj buu ilaahay ka dambaysiiya. laakiin rabbi subxaanahu wa tacaala farajkiisa wuxuu u yeelay asbaab uu ku xusay kitaabkiisa, qaarkoodna uu waxyooday rasuulkiisa oo inoogu sheegay axaadiida iyo sunnaha laga soo wariyey. waxaa la gudboon qofka muslimka ahi an yatacarafa calى asbaabi alfaraji bacda shidda, waxyaabaha sabab u noqda faraj ka yimaada xaalad adag iyo dhibaato dabadeed. culamaau lislaam arrinta noocaasiya aad bay xil isaga saareen, kutubna way ka qoreen, ay ku xuseen asbaabta farajka iyo aayad iyo axaadiis iyo qisas fara badan oo arrinta noocaasiya ka hadlaya. culimada kutubta ka qortay waxaa kamida atanuki raximah llahu tacaala shidatu bacda alfaraj, kitaab la dhaha buu leeyihi 500 oo safxadood ku dhow. wakadalika culimada kutubta ka qortay waxaa kamida almawardiyu raximah llahu tacaala. waxaynu isxusuusinaynaa maanta biidn illahi subxaanahu wa tacaala 6 arrimood oo kamida kuwa ilaahay uu kitaabkiisa ku sheegay, nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam axaadiistiisa uu ku xusay, oo sabab u ah farajka yimaada xaalad adag dabadeed. arrinka koobaad waa xusnu danni billah, addoonka xaaladdu markay ku adkaato in ilaahay subxaanahu wa tacaala malo wanaagsan uu ka malaysto, wax fiicanna rabbi subxaanahu wa tacaala inuu ka rajeeyo, marnaba inaanu ka quusan farajka ilaahay ee uu noqdo mar walba mid sugaaya bushaarada weyne ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ugu bushaareeyey addoomihiisa xaaladdu markay ku adkaato sabra, ee xaaladda adag ee aanay sabab ugu noqon ilaahay inay ka fogaadaan waddadiisana inay ka leexdaan. qaala allahu tacaala fi lxadiidi alqudsi ana cinda danni cabdii bi, addoonkaygu wuxuu iga malaysto ayuu iga helaya. hadduu quusto oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka malaysto uu ka fisho xaaladda adag inay adduunyadu ugu dhammaanayso oo faraj ilaahay aanu iman ahayn, taasuu ilaahay ka helaya. hadduu rajadiisa xoogeeyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka fisho inuu faraj u keenayo, xaaladdan adagna ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ka bedelayo, taasuu ilaahay ka helaya. waxyaabaha addoonka muslimka ah ku caawinaya xaaladdu markay ku adkaato inuu ilaahay malo wanaagsan ka malaysto, farajna rabbi subxaanahu wa tacaala uu ka sugo, waxaa kamida qisasu lfaraj almadkuurati fi kitaab illah. qisooyinka farajku aada uga dhex muuqdo shida iyo adeeg dabadii ilaahay kitaabkiisa ku sheegay.
si kastoo xaaladdu ay kugu adag tahay waxaad ogaataa addoonka ilaahayow rabbigaa inuu yahay kii shaafiyey nebiyullaahi ayuub 18 sannadood intuu xanuun hayay kadib, xanuunkaasi oo dhulyaal ka dhigay dadkii oo dhammina inay ka yaacaan oo cidi aanay ku soo hadhin 3 qof mooyaane sabab u noqday. si kastoo xaaladdu ay kugu adag tahay rabbigaa subxaanahu wa tacaala waa kii nebiyullaahi yuunus xuudkii ama nibirigii liqay ee bedda la galay ee la quusay, waa kii isagoo nool ka soo saaray. dhibaatadii ka soo gaadhayna rabbigaa waa kii ka caafiyey. si kastoo addoonka ilaahay ow xaaladdu ay kugu adkaato rabbigaa subxaanahu wa tacaala waa kii nebiyullaahi yacquub farajka uga yeelay xaaladdii adkayd ee soo martay, una soo celiyey inankiisii yuusuf oo badqaba, oo weliba ilaahay subxaanahu wa tacaala darajooyin uu kordhiyey. si kastoo xaaladdu ay kugu adkaato rabbigaa subxaanahu wa tacaala waa kii farajka uga yeelay nebi muuse iyo intii raacdee rumaysay xaaladdii cidhiidhiga ahayd ee adkayda ay galeen. baddii baa ka hor timi, cadowgiina waa daba socda, waa daba guuraya, waanay arkaanba. falamaa taraa aljamcaani qaala asxaabu muusa inaa lamudrakuun qaala kala ina maciya rabbii sayahdiin. xaaladdu iyadoo si ay u adag tahay sidaasay rajadiisu u sarraysay. ilaahay baana subxaana wa tacaala taa u xaqiijiyey oo badweyntii uga jeexay waddo ay nabadgelye ku mareen isaga iyo intii rumaysay, kuna halaagay cadowgii awoodda isbidaayey ee daba socday. ayuha almuslimuuna cibaad allah, sababta labaad waa atawbatu ila allah wa muraajacatu xaali nafs wa taxqiiqu taqwa. waa inaad ilaahay u toobad keento subxaana wa tacaala, naftaadana aad dib ugu noqotood isxisaabiso. taqwada ilaahay uu ku abuuro addoon ilaahay oo ilaahay caabuda oo waddada rabbi ku toosan oo ilaahay ka baqo, amaradiisa fuliyo, wuxuu u diidayna ka fogaada, inaad xaqiijisataana. waxaad ogaataa yaa cabdallah, xaalad kastoo adag oo aada dhibsanayso kula soo gudboonaata sababteedu inay noqon karto dembi aada samaysay. ilaahay oo subxaana wa tacaala xaq xuquuqdiisii kamid aad dayacday, ama wax ilaahay uu kuu diidu kaa xaaraantimeeyey oo nafta aad ka celin weyday oo aad ku dhiiratay. idan farajka sababtiisu maxay noqonaysaa? waxaa shiddada iyo adayga iyo culayska iyo dhibaatada keenay oo macsiyada iyo khilaafka amarka ilaahay inaad meesha ka saartood ilaahay subxaana wa tacaala u toobad keento. daraba allahu mathala qaryata kanat aaminata muطma'ina yأtiiha rizquha ragada min kuli makan fakafarat biancumi illah faadaaqaha allahu libaas aljuuci wاlkhawf bima kanuu yasnacuun. waa tusaale arrinta noocaas iyo markhaati u ah oo ilaahay kitaabkiisa inoogu sheegay. waa dad magaalo degan, xaalad ladnaaneed iyo barwaaqo ayay ku jiraan, nabadgelyay haystaan iyo deganaasho, arsaaqda ilaahay baa jiha walba uga timaada. intay ilaahay subxaana wa tacaala u mahadnaqi lahaayeen ee waddadiisana ay ku toosnaan lahaayeen bay ilahay amarkiisi khilaafeen. ilaahay subxaana wa tacaala shidda ayuu ku ciqaabay, wuxuu ilaahay dhadhan siiyey gaajo iyo baqe. waxa ugu dhow ee jidhkooda ay isu xigaan gaajo iyo baqe ayuu ilaahay ka dhigay, waxa ay sameynayeen sababtii. idan waxaanaad dhibsanaysa dembigaaga sabab u noqon karaa ee si aad faraj u hesho ilaahay subxaana wa tacaala u toobadkeen. ilaahay baa yihi waman yataqi llaha yajcal lahu makhraja wayarzuqu min xaysu laa yaxtasib wاtawbatu min ataqwa. qofka ilaahay subxaana wa tacaala ka baqa ee waddadiisa ku toosnaada, ilaahay xaalad kastoo ku adkaata faraj buu uga yeelaya, meel aanuu risqiga ka filanahayna ilaahay waa uga keenaya. waman yataqi llaha yajcal lahu min amrihi yusra. qofka ilaahay ka baqoo diintiisa ku camal faloo ku toosnaada, arrimihiisa ilaahay baa fududaynaya. faqultu اstakfiruu rabakm inahu kana gafaara yursil الsamaaa عalaykum idraara wayumdidkum bamwaali wabaniin wayajcal lakum janaati wayajcal lakum anhaara. hakada tawbat اlistigfaar taأti bاlfaraj bacda shidda. arrinka saddexaad waa atacarufu ilى اllahi fi waqti الrakhaa liyaأtiika alfaraju min allahi fi waqti shidda.
marka aad ladan tahay eed barwaaqaysan tahay ee arrimahaagu ay isugu kaa toosan yihiin waa inaad noqoto addoon ilaahay yaqaan macrifadana loogama jeedo almacrifata alcaama si guud mid ilaahay u yaqaana oo u rumaysan almacrifa alkhaasa baa looga jeedaa waa qalbigaagu in ilaahay ku xidhaya subxaana wa tacaala oo rabbi uu ku kalsoon yahay uu ku xasiloon yahay qalbigaagu mid ilaahay ka haybadaysta oo ka xishoonaya inuu yahay oo taasi ay ka celisa ilaahay subxaana wa tacaala amarkiisa inuu khilaafo qalbigaagu inuu yahay qalbi ilaahay u dullaysan ilaahay u khushuucsan oo rabbi subxaana wa tacaala hayin u ah qalbigaagu inuu yahay qalbi ilaahay jecel oo weyneynaya markaad ladan tahay haddaad sifadaa leedahay waxaa damaanada xaaladdu markay kugu adkaato arrintaasi inay kuu noqonayso rasiid akownkaaga kugu jira oo sabab u noqda ilaahay xaaladda adag faraj inuu kaaga yeelo qaala nabiyu calayhi الsalaatu wasalaam fima rawaahu axmedu wالtirmidiyu wagayruhuma can ibni cabaasin radia allahu canhuma tacaraf ilى اllahi fi الrakhaa yacrifka fi الshidda ilaahay subxaana wa tacaala aqoon gaara u yeela garasho gaara marka aada ladanta aada barwaaqaysan tahay xaaladdu markay kugu adkaato ayuu ilaahay farajkiisa ku keeni doonaa ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu sheegay qiso la yaab leh oo taa muujinaysa addoonkii markuu ladnaa ee uu bad qabay qalbigiisu ilaahay uu ku xidhnaa ee ilaahay in badan xusi jiray xaaladdu markay ku adkaatay in wanaaggiisii hore sabab uu noqday xaaladda adag ilaahay faraj inuuga yeelo waa nabiy llaahi yunus falawlaa anahu kana min almusabixiin lalabitha fii baطnihi ilaa yawmi yubcathuun nibiri baa liqaysaynu hore u sheegnay ilaahay wuxuu leeyahay markii uu bad qabay beriga markuu joogu banaanka maraayey haddaanu ka mid ahaan lahayn kuwa quluubtoodu ilaahay ay ku xidhan tahay ilaahay in badan xusa halkaasi ayuu ku jiri lahaa laakiin halkaa inuu ka soo baxo ilaahay sabab muxuu uga dhigay tasbiixdiisii dikrigiisii ducadiisii cibaadadiisii daacadiisii istiqaamadiisii khayrkiisii iyo wanaaggiisii bal fircoonna u fiirso markuu ladnaa kibir buu cirkaa isla mariyo ana rabukum laclaa bullah iyo maa calimtu lakum min ilaahin gayri markii xaaladdu ay ku adkaatay ee cidhiidhiga u galay ayuu yihi aamantu ilaahay subxaana wa tacaala muxuu ugu jawaabay alana waqad casayta qablu kunta min almufsidiin marka xaaladdu kugu adkaato un mid ilaahay yaqaana ha noqon sidii mushrikiinta ilaahay uu kaga sheegay kitaabkiisa ee marka aada ladan tahay baryada ilaahay badi iyo dikriga ilaahay iyo cibaadada iyo toosnaanta taasi waxay sabab u noqon doontaa ilahay inuu faraj ku yeelo abu dar radia allahu canhu waa saxaabi jaliila nin baa u yimo ku uhi ila tali faqaala udkur illaha fi saraa yadkurka fi daraa ilaahay xusuusna oo xus markaad ladantahay aada barwaaqaysan tahay ee arrimuhu saad jeceshahay ay u dhacayaan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku xusi doonaa farajkiisa iyo nasrigiisa uu ku keeni doonaa marka xaaladdu kugu adkaato qaala ayda radia allahu canhu udcu llaha fi yawmi saraa'ik lacalahu an yastajiiba laka fi yawmi daraa'ik maalintaad ladan tahay addoon ilaahay ku xidhan oo ilaahay baryo noqo mar walba ilaahay subxaana wa tacaala waad u baahan tahay laakiin baryadaad ilaahay barido markaad ladan tahay ee dhibaato aana dareemahayn waxay sabab u noqonaysaa markay xaaladdu kugu adkaato rabbi subxaana wa tacaala ducada inuu ka aqbalo arrinka afraad waa atadarucu ila allahi biاdducaa wاllujuuءu ilayh wa cadamu اllujuuءi ila اlmakhluuq cinda shadaa'id اlumuur waa inaad ilaahay subxaana wa tacaala barido oo ilaahay aada ku irkato subxaana wa tacaala oo aanad makhluuqa naftaada laga bilaabo aanad isku hadlayn oonad cuskan oo xaggiisa aanad u cararin in badan oo kamida dadku muslimiinba ha ahaadaane xaaladaha adagi markay la soo gudboonaadaan iimaanka daciife iyo kafladda jirta awgeed markiiba ilaahay subxaana wa tacaala ma baryaan waxay qaadaan tallaabooyin kaloo ay isleeyihiin arrintaa adaga idin haysata ku xalliya qof ay isleeyihiin arrintaa waxbuu ka qaban karaa erguu ka geli karaa cid buu kaala hadli karaa deyn buu kaa bixin karaa ama awoodo iyo xeelado ay leeyihin inay isticmaalaan bay isku dayaan
waajibku waxa weeye tallaabada koowaad ee aad qaadaysaa inay noqoto inaad rabbigaa xidhiidh la samayso. ilaahay baa caalamkan maamula, yudabiru lamra min aلsamaaءi ilى alard. arrin aanu ilaahay kuu fulinahaynina kuu fuli maayo. walaa xawla laka walaa ligayrika min almakhluuqiina ila billah. adiga iyo makhluuqaadka kala toona ma lihidin awood iyo xeelad aad wax ku qabsataan. ilaahay baa subxaana watacaala wuxuu ihi falawlaa id jaaءahum ba'suna tadaracuu. hada huwa almaطluub. markii cadaabkayaga iyo dhibaatadayadu ay ku habsatay, miyay ilaahay isu dhuldhigaan subxaana watacaala? quluubtoodu xagga ilahay miyay usoo jihaysato? rabbi subxaana watacaala miyay baryaan? ilaahay baa subxaana watacaala qofka xaaladda uu dhiban yahay ilaahay barya u ballan qaaday inuu ducadaasi ka aqbalayo. aman yujiibu lmudara ida dacaahu wayakshifu الsuu wayajcalukum khulafaaء alard a ilaahu maca allah. ma sina allaha subxaana watacaala ka dhibaataysani markuu baryo ajiiba, dhibaatadana ka dulqaada. allaha dhulka idin dejiye idin dhiibay iyo kuwa aan sifaadka lahayni ma sina. adducaau ya cibaad allah min aqwى alasbaabi fi dafci اlmakruh wa xusuuli اlmaطluub. waa sababta ugu weyn ee dhibaatada lagu riixo lagagana baxo waxa la doonayana lagu gaadho. laakiin waxaa dhici karta adoo ducaystay ducadu inaana yeelan raadkii aad ka filaysay, oo sababto ay tahay ducadaadu inay tahay duca aanu ilaahay jeclayn, oo wax khaldan baad ku ducaysanaysaa oo dembi ah, amaba se qalbigaaga ayaa daciif ah oo ducadu waxay ka dhigan tahay, qalbiga iyo ducadu waxay isaga dhigan yihiin leebka iyo qaansada. ducadu waa leebka, qalbiguna waa qaansada. qaansada awooddeedu intay leeg tahay ayaa leebku halku gaadhaya ku dhacayaana ay leekaataa marba. qalbigaaga iimaanka ku jira iyo alla ku xidhnaanta iyo tala saaradka ilaahay iyo kalsoonida iyo rajada ku jirtaa intay leeg tahay ayay leekaanaysaa marba ducadaada halka uu qalbigu gaadhsiinayo iyo aqbalitaanka ilaahay subxana watacaala uu aqbalo. wuxuu inooga sheekeeyey nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam 3 nin oo kamida ummadii inaga horreeyey. safar bay ahaayeen, god bay galeen, way is idhaahdeen uhoyda. dhagax weyn baa buur kaga soo dhacay oo godkaasi ku daboolay. waa xaalad adag, cid ay u yeedhaan, cid arkaysa, cid maqlaysa oon ilaahay ahayni subxaana watacaala ma jirto. may quusan, way wada hadleen oo waxay yidhaahdeen ilaahay subxaana watacaala mooyaane cid kaloo meeshan inaga saaraysaa ma jirto, dhibaatadan cid kaloo inaga badbaadinaysana ma jirto. mid walowba ilaahay bari, weliba ilaahay waxaad ku baridaa ad ugu tawasushaad ugu dhawaataa camal wanaagsan oo aad is leedahay alla ilaahay malaa camalkaa ilaahay daraaddii baad u samaysay. sidii bay yeeleen. kii koowaad markuu duceeyey inbuu dhaqaaqay dhagixii. ma jirto cagaf riixday iyo wiish ay u dalbadeen toona. awoodda ilaahay baa subxaana watacaala si toosa u dhaqaajisay. kii labaad markuu duceeyeyna inbaa dhaqaaqday laakiin may soo bixi karayn. kii saddexaad markuu duceeyey dhagixii waa baneeyey afaafkii godka iyagoo soconaya oo aan foorarsan oo aan gurguuranahayn ayay ka soo baxeen. raadkaasay ducadu leedahay marka shiddada iyo dhibaatadu ay jirto. waa addoon ilaahay awooddiisa qiray, addoonka ilaahay baryay, ilaahay qaninimadiisa qiray. waa addoon baahida ilaahay u qabo iyo inuu yahay addoonkii ilaahay oo daciif oo rabbi aan ka maarmi karin si dhaba u qira weeye. saasay raadka ducadu ay ku yeelanaysaa. waxaa jira ducooyin gaara oo nabigeeni maxamed alayhi salaatu wasalaam uu sheegay xaaladdu markay adkaatay in lagu ducaysto oo ay sabab u yihiin ilaahay addoonka faraj inuu keeno. waxaa kamid a ducada uu rasuula ka wariyey saxaabiga la dhaha abu bakra. abu daawuud baa sunantiisa ku qoray. qaala nabiyu alayhi salaatu wasalaam dacawaat lmakruub allahuma raxmataka arju. qofka kurbaysana dhibaataysan ducooyinka ay tahay inuu ku ducaysto waxaa kamid a inuu dhaha allahuma raxmataka arju, ilahu raxmadaadaan rajaynaya. falaa takilnii ilaa nafsii طarfata cayn. ilahu awoodayda iyo xeeladayda iyo aniga hanoo kala bixin. waaslix lii shanii kulahu laa ilaha ilaa anta. ilahu arrinkayga o dhan iyo hagaaji,
mid xaq lagu caabudaa ma jiro adiga mooyaane waxaa kamid a ducada ibnu cabaas nabiga calayhi salaatu wasalaam ka wariyey ana nabiya calayhi salaatu wasalaam kana yaqulu cinda alkarb laa ilaha ila allahu alcadiim mid xaq lagu caabudaa ma jiro allaha xaqa ee weyn mooyaane laa ilaha ila allahu rabu lcarshi alcadiim mid xaq lagu caabudaa ma jiro allaha carshiga weyn le mooyaane laa ilaha ila allahu rabu samaawaati wa rabu lardi wa rabu lcarshi alkariim mid xaq lagu caabudaa ma jiro allaha samooyinka rabbiga u ah dhulalka u ah carshiga weyn u ah mooyaane bukhaariyo muslim baa wariyey waxaa kamid a ducooyinka dacwatu dinnuun dacwaduu ku ducaystay nabiy llaahi yunus xaaladda adag markuu galay wuxu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam sida tirmidi u wariyey dacwatu dinnuun wahuwa fii baطni اlxuut laa ilaha ila anta subxaanaka inii kuntu min aaalimiin ducada uu ku ducaystay nabiy llaahi yunus isagoo nibiriga calooshiisa ku jira maxay ahayd mid xaq lagu caabudaa ma jiro adiga mooyaane xumaan oo dhan waad ka hufan tahay ilaahay ow kuwa gardaroolayaasha khaldama ayaan ka mid ahaa fainahu lam yadcu biha rajulu muslimu fi shayin qad ila istajaaba allahu lahu qof kasta oo muslim oo ducadaa ku ducaysta oo arrin la soo gudboonaatay kaga ducaysta ama wuxuu doonaya uu jecel yahay ilahay subxana wa tacala ducadaas waa ka aqbalaa waxaa kamid a ducada ay sheegtay asmaa bintu cumays qaalat callamanii rasuulu llah kalimaatin aquluhuna fi lkarb rasuulka ilaahi wuxuu i baray kelmada aan idhaahdo markay xaaladdu adkaato allaha rabbi manaa ilaahay baan baryaya rabbigay baan baryaya laa ushriku bihi shay-an ilahay cidna la wadaajin maayo cid kale la baryi maayo sidaa ku ducaysan uri rasuulku markay xaaladaadi kula soo gudboonaato ibnu maaja ayaa wariyey ilaahay baynu subxaana watacaala weydiisanaynaa faraja min kuli karbin wayusra bacda kuli cusri wanasal llaha subxana watacala an yuwafiqana liasbaabi lfaraj aqulu qawli hada wastaqfir llah li walakum alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqiina wla cudwana ila clى الظalimin wslى اllahu عlى nabiyina mxamedi wعlى alih وصaxbih wslama tasliima kaiira ama bacdu ayuha lmuslimuuna cibaad allah sababta shanaada kamida asbaabta farajka waa altawakulu cala allah in addoonku yahay addoon ilaahay kalsooni ku qaba hiqatu billah ilaahay awooddiisa ku kalsoon karamkiisa iyo deeqsinimadiisa ku kalsoon ilaahay wacdigiisa iyo yabohiisa iyo ballanqaadkiisa inuu dhabeeyo ku kalsoon ilaahay subxaana wa tacaala inuu yahay mid farajka keena bacda shidda yaqiinsan mid ilaahay cuskanaya subxaana wa tacaala oo rabbi subxaana wa tacaala isku hadlaynaya ilahay wuxuu inoogu sheegay fi lqur'aan alkariim nin muumin ahaa oo fircoon ay isku qolo ahaayeen waxaa rabbi subxaana wa tacaala uu ka sheegay markii ay u hanjabeen ee ay dooneen ee dhibaateeyaan inuu yihi wa ufawidu amrii ila allah arrinkayga ilaahay baan u dhiibanaya rabbi baan subxaana wa tacaala tala saaranaya in allaha basiiru bilcibaad arrinkayga iyo kiina iyo ka addoomaha oo dhamina ilahay kama qarsoone rabbi subxaana wa tacaala waa arkaa fawaqaahu llahu sayi'aati ma makaru shirqoolkooda dhibkiisii ilahay baa subxana wa tacaala ka badbaadiyey bisababi tawakulihi cala allah aladiina qaala lahum nnaas ina annaasa qad jamacuu lakum fakshawhum saxaabadii rasuulka weeye iyo nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam dad baa u yimi oo yidhi markii dagaalkii uxud oo dhibaato badani ka soo gaadhay laga soo jeestay haddaaba laydinku soo socdaaba oo lasuukiin habar wacday ka baqa dadka maxay yidhaahdeen xasbuna allahu wa nicma alwakiil ilaahay baa nagu filan rabbi baanaanu tala saarayna fainqalabuu binicmati min allahi wa fadl lam yamsashum suu itabacuu ridwan allah markay ilaahay sidaa ugu kalsoonaadeen ay tala saarteen nabadgelyo iyo nicmo iyo badbaado iyo dheeraad dadka kale ay dheer yihiin diinan ayay la noqdeen buri rabbi subxana wa tacala arrinka lixaad waa asalaatu cala nabiyi calayhi salaatu wasalaam mar kastoo xaalad adag ay kula soo gudboonaato ama dhibaata ay kugu habsato akthir ya cabdallahi min asalaati calaa nabiyika calayhi salaatu wasalaam waxaad farabadisaa salliga nebigaaga ninkii ku yihi ajcalu laka salaati kulaha
ducadayda oo dhan ku salligaagaan ka dhigaya rasuulka ilaahayow rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi idan tukfaa hamaka wa yukfaru danbuka wax allaale waxa werwer kugu hayaa lagaaga filaan doonaa dhibaatooyinka culayska kugu hayo o dhan baa lagaa dulqaadi doonaa dembiyada ku culaysiiyeyna waa lagu dhaafi doonaa darajadaas ayaa salliga nebigu calayhi salaatu wasalaam addoonka uu gaadhsiinaya اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.